udhagayso wixii faa'iido ahna kala bax naftaadana ugu yeedh khayrka. Nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa wuxuu booqday nin asxaabta ka mid ahaa oo aad u xanuunsanayay. waxa uu weydiiyay Ilaahay wax ma weydiisan jirtay. wiilkii ayaa waxa uu ku jawaabay waxaan odhan jiray Ilaahayow dambiyada aan galay ciqaabteeda maalintii yawmil qiyaama liiga jari lahaa hadda ii soo dedejiyo adduunyada igaga jar. wuxuu yidhi subxaanallah ma tidhi Ilaahayow adduunyada wax wanaagsan inagu sii aakhirana wax wanaagsan inagana badbaadi cadaabtaada. nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam markii uu jeelka waqti badan ku dhex qaatay uu ku raagay waxa uu yidhi Ilaahayow jeelka aadayad igu dhex raajisay. Ilaahay ayaa u jawaabay oo yidhi adiga ayaa dalbaday jeel waana ku siinay haddii aad dalban lahayd dambi dhaaf waana ku dambi dhaafi lahayn. quraanka ayuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku xusay hadal uu nabi yuusuf yidhi qaala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yadcuunanii ilayh. Ilaahayow jeelka ayaa iiga roon waxan ay iigu yeedhayaan. Ilaahayna dalabkiisii ayuu u oofiyey maadaama uu ka dalbaday jeel. dib u xasuuso noloshaada inta jeerad ku dhawaaqday weedha u eeg hadalladaas. imaam al-wardi ayaa waxa uu yidhi alqadaru muwakkilun bilmantiq. waxa aad ku hadlaysaan ka warhaya carabkiinana ka ilaaliya hadalla noocaasi ah oo habarina. waxa aad ku hadlaysaan naftiina ayay hadhow dib u keeni kartaa. waxa aad ku hadlaysaan amba aad Ilaahay ka dalbanaysaan ha noqdo waxa ugu wanaagsan ee aakhiriya adduunba ku anfacaya. sheeko uu warinayo sheekh lagu magacaabo Cali Dandaawi ayaa waxa uu leeyahay sheekhu Shaam ayaa waxaan ka ahaa qaadi amba garsoore. maalin maalmaha ka mid ah ay ahayd waqti ay cadceedu sii dhacday ayaa waxa aan wada soconay niman saaxiibaday ah. annaga oo dariiqa soconna ayaa waxa aan dareemay daal iyo culays zaa'id ah. waxa aan damcay inaan adkaysto oon la sii socdo saaxiibaday balse waan awoodi waayay. kadib ayaa waxaan ku yidhi iska sii socda anigu meeshan ayaan ku yara leexanaya oo hawada ayaan qaadanayaa. markii aan ka leexday ayaa waxa aan maqlay gurxan iyo ooyin dhagahayga ku soo dhacaysa. markii aan sii dhawaaday ayaa waxaan arkay gabadh foorarta oo oohinaysa isla markaana Ilaahay baryaysa. waan ku dhawaaday oo waxaan idhi walaalay maxaa kugu dhacay oo sidan kaaga oohinaya. waxa ay tiri saygaygu amba ninkaygu waa nin xun oo daalim ah. gurigii ayuu iga soo eriyay carruurtiina wuu iga reebtay xataa iima ogola inaan soo eego. aniguna ma haysto hoy iyo cid aan u tago. qaadigii ayaa waxa uu ku yidhi oo dacwadaada maxaad ugu gudbin weyday qaadiga magaalada. aad ayay u ooyday kadib waxa ay ku tirsiday gabadh anigoo kala qaadiga ugu tagi kartaa. sheekha oo oohinaya ayaa dhammaystiray oo yidhi gabadhu ma oga inuu Ilaahay qaadiga lugihiisa ugu keenay isaga oo ka hadlaya naftiisa ilaan waa qaadigii magaalade. Ilaahay ayaa waqtiga madow ee habeenimada ah qaadiga lugihiisa ku horgeeyay gabadhaas isla markaana uu isaga laftiisu weydiinayo gabadhu waxa ay u baahan tahay. gabadhaasi sidaas u dhibaataysnayd ducadii Ilaahay weydiisatay Ilaahay wuu aqbalay. qof walba oo dhibaato dareemaya oo u maleynaya inay adduunyada ka xidhantay gacanta kor u taago Ilaahay weydiiso wax aad u baahan tahay oo hays odhan sidee xal loo gaari karaa oo kuwan umuurihii isku qasmay. ka farxi qalbigaaga ogow markaad dhibaato u samirto kadib inuu jiro shay ku ilowsiin doona dhibaatada aad soo martay. Ilaahayow qof walba oo fariintaydaasi furay ee maqlay Ilaahow barakee oo cirka iyo dhulka uga fur arsaaq uu ku farxo. qof walba oo sii sheergareeya oo sii faafiyana Ilaahow jannadaada xisaab la'aan ugu nimcee. Ilaahayow waxa uu haminayana u fududee isaga iyo dhammaan muslimiinta dunida ku dhibaataysan. oo lagu soo biir waxay inoo tahay tartar iyo dhiirigelin.